السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أركسن في أي بي مانتا موحان كهالينا برنامج آد مهم نوغو مركي هاي هويوين أو العرور هايستا دونيدا مانتا آن جوغنو waxaa ku soo badanayo dilka iyo farxumeynta caruurta dadka waxaas geysanayana ay yihiin dad ilmihii guriga la joogo ama guriga u dhow ama ehelkii qaraabo ama saaxiib la ah oo dad aad loo aamino ah hadda 10 shay aan uga hortagi karno dadka noocaas oo kala ah ayaan rabnaa maanta inaan meeshan uga hadalno ilmaha adduunka saaran boqolkiiba 25 waa la farxumeeyaa ilmaha adduunka saaran oo da'doodii ay ka yar tahay 12 ilaa ilmo yaroo 6 bilood ah inta ay ka jiraan waa ilmaha farxumeynta loo geysto boqolkiiba 92 dadka waxaas geysanayana waa dad guriga kula noolaay ama cidda saaxiib la ahay ama waalidkooda familka kamid ahaa ayaa ilmaha taa u geysto okay maanta waxaan ka hadlaynaa 10 shay ta koobaad oo maanta aan soo qaadanayo qodobka koobaad diintaada ku dhaqan waxaan ku leeyahay hooyoy ilmahaaga iyo adigaba inta diinta ka reebtay oo ku tiraada salaad bay ka jabisaa ha soo dhawaysanin hana keensanin gurigaaga beel diintiyaaba lagugu sheegay ha dhihin hobarirtaa wiilkay dhashay eedadaa kay dhashay haba u soo seexinin sabab gaani adiguu ku geeyaa ilmahaaga muxuu u yahay wax uu u yahay oo nacam ka reebi karto ma jirto soo marka inta diinta kaa reebtay ha kaa reebanaato waaba la huri waayo qofka waaba safar ama daruufo jira awgeed kala soc dadka caruurta iyo dumarkana meel ragguna meel ha isku dhex qasin rag iyo dumar waxyaabaha noocaas oo kale ah dad waxaa jiro iimaanba lahayn akhlaaqna lahayn oo adiga aadan garanaynin adiga dhiig ku wado isleedahay waa familkeyga soo dadka noocaas oo kale ah even waxaad sameeydaa inaad ka foojigan tahay ha dareemaano qol gooni ah irid banaanka meel adiga dhinac kaa ah kor haddaad degan tahay hoos iska deji ha ogolaanin in la isdhex qasmo oo dantiyaaba kalifta markaas moogta number 1 waa kaas qodobkeena labaad oo maanta aan uga hadlayno waxay tahay waa inaad taqaanaa qofka ilmahaaga u dhow waxaan ka wadaa guryo kiraa haddaad degan tahay yaa waayo qofka dariskaaga oo qolka kugu dhagan oo ilmahaaga ay mar walba ay is arki karaan dariskaaga macalinkooda qofka ku caawinaayo dadka waalidiinta ah oo qaraabada kore oo ilmihii waalid ugu aadan ilmaha saaxiibadooda dadkaasoo dhan inaad foojigan tahay waa inaad tusidaa ama aad taqaanaa oo dhahdaa haye halkan daqiiqadna ma maqnaanayo aniga waa soo laabanaya halkaanaan taaganahay meel dheer ma jiro nacam ilmahaaga inaad ka maqan tahay aysan dareemin dadkaas qodobkii 3 dhageyso caruurtaada oo ilmahaaga xumaatida iyo maxaa wixii lagu sameeyo yeyna kaala dhuumanin ee isdhihin haddaad hooyo u sheegto ama aabbo ama lagaaga daraa ilmaa u qariyo xitaa xumaatida lagu sameeyo yeeris qarsadaan oo markay weynaadaan dhahaan saana dhacday intaas waxay u sheegi laayihiin inaad hooyada iyo aabbaha ay ka xanaaqaan ay dhahaan arrintan hooyaday hadday maqasho way ka xanaaqeen oo because dadka waxa waa laxawga ilmahaaga waa inaad laxaw siisaa oo tiraado qofka ku taabta aha anaa gowracayo qofka meeshan ka taabto aniga ii soo sheeg tii dheerad anaa ku dhigaayo bar ilmahaaga midda 4 bar oo 5 aan dhahay bar ilmahaaga inay qayliyaan oo waxaad leedahay hadii lagu taabto qayli xago qaniin carar nacam inay isdifaacaan bar intay yar yihiin oo leedahay qayli oo yaa lagu soo dhawaanin oo
dadka waxba ha ka qaadanin oo even waalidka ilmaha lacagaha iyo nanaca ka siina ha iga siinin wixii aniga aan siinaa anaa siinaya dheh yaa laga barin ilmaha inay rabaayad yihiin ilmaha rabaayadeysan waa ilmaha oo ugu fududahay in la kaxaysan karo in maxaa la yiraahdaa ay ishaada intaysa meel jiran ilmahaaga laga xadi karo xitaa lambarka 6 hooyoy ilmahaaga ha barin qof kasto inuu wax u yahay dadka qaar meelaha ehelkooda iyo dadkooda joogin oo nacam faamilkooda ka fog marka ay arkaan qof magac la wadaago kaleeto ay arkaan ilmahooda waxay yiraahdaan waa adeerkaahe habsi salaan waa adeerkaahe waa eedada waa abtiga waa qofan magac wadaagtiin reer qansaxad isku tihiin hooyadaana ma dhalin aabahaana ma dhalin nacam yuu ciifad iyo dhiig ku qaadin iyo hilow maadaama aad dadkaaga ka fog tahay ilmahaaga hog ha ku ridin oo ha dhihin qof aan waxba u ahayn oo aad og tahay deep down qalbigaaga aad ka og tahay inaadan waxba aan isku ahayn hooyadaa dhalin aabahaa dhalin adeerkaa dhalin abtigaana dhalin magaca inta maqashay maadaama aad dadkaaga ka fog tahay ilmahaygu abti u yahay ilmahaygu adeer u yahay ma u ahan cunugi markaad dhahdo qofkaan habsi bari jidka hadduu ku arko hooyadii ama aabihii habsi dhahay maxaa dhib leh qofka ma taqaanid iimaankiisaadan warkahayn akhlaaqdiisa warkamahayn magaciyaad maqashay magacaa ku wado no ilmaha waxyaabahaasoo kale ka ilaali ha barin waxaasoo kale waa waxyaabaha caadada noo ah number 7 ha ogolaanin in ilmahaaga ay kaligood noqdaan ha ogolaanin hana ogolaanin dan kasta oo ku haydo afka ku qabso dan kasta oo ku haydo qof muhiima uga tag dan kasta oo ku hayso ha cidlaynin wax alla wixii kaa go'i kara ha kaa go'o laakiin ilmahaaga ha cidlayn oo dugsiga quraanka cidlaha ugu dirin oo iskuulka ayagoo cidla ah oo dirin ya ilmo koox isku raacay yes ha way jiraan laakiin ilmaha kaligood ah ha dirin gacanta ka qaba iska geey maxaa kaa ba'ayo iskuulka gacanta ka qaba ha iga soo daynin anaa kaa soo doonanayo jidka dhexdiisa ah dad aad hore u bartay aad dhex ka qabsanayo oo ha ka yeelin ilmahaaga hadday ay ka yar yihiin 13 sano wadada ha ku daynin 13 jir waa qof xoog leh waay iska celinaya dadka goosaha ka soo garaaca leedahay qofka korkaaga ku soo xadgudbo laakiin ilmaha intaas intay ka yar yihiin ha ku daynin lambarka 8 kaas lambarka 7 oo ay Soomaan 8 la hadal ilmaha macallimiintooda iskuul iyo quraanba bal xiriirka ilmahaaga iyo macallinkooda ka dhaxeeyo macallimiinta qaar malaa'ig ma ahan mana dhahay ayaga kaliya wax sameeyo laakiin malaa'ig ma ahan sabab ayaan dhexdaas 2 sano ka hor ilma macallin u dhigaayay guri keena qaybta hoos ku dhigaayay 2 gabdhood oo quraanka u dhigaayay 2 gabdhood wuxuu diiday inuu fadhiga wax ugu dhigo wuxuu yiri qolka aan rabaa because buuqiina batuu dhahay qolaa 2 gabdhood loo galshay quraankii ku garaaca midda yar wuxuu sameeyaa way buuran tahay shafkeedii iyo xijaabkii isku qabtaa wali gabadhaasi wax u soo baxay male I believe age-keeda 9 iyo waxaasay jirtaa laakiin waa gabar buuran ilmo yar oo buuran waay ilmihii waxaa dhahday hooyo xijaabkayga iyo feerahaygu macallinka feeraha oo xanuunaaho wuu iga qabtaa feerahaas iyo xijaabku isku majiijiyaa iga aamusay tiri aabaheeda u sheegtay ha laga saaro dhaha guriga ilmahaaga qol ha kula xirin fadhigaas ha loogu dhigo qof kale extraane ha ilaaliyo iimaan kastuu leeyahay wax kastuu leeyahay barxadaas iigu dhig oo limaada aad guriga ula galaysaa ilmaha no adduunyada waa la tagay dadki xaaraanay cuneen maxaa la dhahaa meher jabanaa lagu wada dhashay
waxyaabo badanaa iska jiro oo qaladaad keeni karo soo marka feejignaawo halkaa barxaddaah loogu dhiga ilmahaaga okay ilmahaaga macalinka ma ka baqaayaan ilmihii ma tartaraayaan ilmaha iyo macalinka intiisa soo hor istaajida bal fiir cunugaaga different muu noqonaa ma isbedelaa ma gariira ma hoosuu fiirina ma garbuhu hoos u godaa mase waa cunug comfortable oo ka hadli karo wixii la weydiiyo mase waa cunug la dhahay haye ushaake afka laga gelgelinayo body language kaad fiirin kartaa okay number 9 numberada inaa isku qalqaldaan u malayn doonaa caawa laakiin dhib male adinkaa kala saaran doono number 9 educate garay ilmahaaga waxbar xubintooda taranka u sheeg xubintaan waa xubintaadii taranka ahayd waa xubintaadii muhiimka ahayd halkan wuu qofna yay weligeed arkin musqushiyaa laguugu soo gelin yaa lagaa taabanin bar ilmaha adiga waa waxay bari lahay ilmaheena anaga dhagoolan ka dhignaa waxba uma sheegno ayagoo dhagoolki ah wixii ku dhacay xitaa aamus sharab waa lagu celinayaa may bar ilmaha 9 sano markay jiraan xubintooda taranka u sheeg ragga iyo dumarka inay kala duwan yihiin u sheeg maxaa la yiraahdaa inay muhiim tahay u sheeg inaan laga taaba karin u sheeg maxaa la yiraahdaa inaan lagu saqajaami karin u sheeg ya jirkooda inaan la taaba karin u sheeg everything ilmahaaga u kordhi aqoonta 9 sano markay jiraan bil aadanimada waxay tahay u sheeg maxaa uga qarine wax berri ay ogaanayaan maxaa uga qarine waa inaad u sheegtaa okay number 10 love your kids ilmahaaga jeclaaw hooy aabba la dhahayo cunugaaga jeclaaw ma jirto laakiin waxaa jirto ilmaha jacaylkooda wuxuu ku qiyaasaan maadaama ay maskaxdooda yar tahay inta yaroo hag aad siinaysid oo shafka ku qabanaysid wax yaroo aad usoo gadano nacyari keeg yaroo aad siisato joyska cuntada guriga aad dhahdo hooyoy maanta maxaa la kariyaa bal adiga noo sheeg ma baastaan karsanaa mise bariis mase maxaa la yiraahdaa sabaayadan kasoo tuuranaa joyce ilmahaas yar farxadaa galaysa maanta aniga ikhtiyaarkayga wax lagu kariyo anaa joyce gareeyay in baasta la kariyo ama bariis la kariyo wuxuu dareemayaa ilmahaas yarkaa inuu baawar leeyahay oo gurigiisa laga qadarinayo wax yaroo giftiisi waxaad awal usoo gadi rabtaba oo intaad soo gada aad siin lahayd u micnay waxaad tiraahdaa maanta wax fiicanaan kuu soo gaday wax fiican ood la yaabto maanta kuu soo gaday oo awalba waad usoo gadi lahayd ilmahaaga show love jacaylka aad u qabto waa inaad tustaa oo waxaad tiraahdaa hooy intaa baan kugu jecelahay saasaad ku fiican tahay qofku wuxuu ku fiican yahay u sheeg ismailkaa ku fiican tahay quraan akhriskaad ku fiican tahay xisaabta saad u qortaad ku fiican tahay nacam meeshuu ku fiican yahay ama uu ka qurux badan yahay ama inuu hadda 5 dheer yahay waa inaad u sheegtaan uu dhaho hooyaday baa saan ii sheegtay because ilmaha qofaan hooyadiis iyo aabihiis ahayn role model uma ahan qof uu ku daysado ayuu u baahan yahay ilmaha u sheeg in aanan korkoodii la taaban karin u sheeg in aan maxaa la yiraahdaaye dadka wax siinaayo kale ilmaha ii gacan dhaafinina dheh ilmaha yaa la ii gacan dhaafin qalad ma ahan ilmaha yaa la ii gacan dhaafin waxaanan ogolayn yaa la iiga samayn ya lacagaha yaa la iga siin nanaca yaa la iga siin yaa la iga fasixin ilmaha waalidka hadday kuu haayaan ama dad kale kuu haayaan ama aad adiga haysatid ilmahaaga in lagu gacan dhaafo jooji because taas hadaadan sameynin ilmaha qof walba waxay u maleeyaan familkooda because ilmaha la faraxumeeyo loogama imaado nin banaankaas inta soo ordo durf inta soo yiraahdo ilmahaaga daf ma siinaayo dadka maskaxda ka jiran ee ilmaha inay wax ku sameeyaan rabaan waa dad adiga muddo dheer kasoo shaqeeyay ee ku ilaashaday ee ku arkay ilmahan sida uu dayacan yahay ee arkay ilmahani in uusan wax xiriir kaala dhaxaynin
marka hore wuxuu fiirsanayaa saacadahaad guriga ka maqan tahay inta waqtiyood maqan tahay inaad qofkaas aad u baahato tiraahdo bal ii fiiri ilmahan weligaa iyo allaha rag iyo dumarba qofaan akhlaaq lahayn ilmaha loogama tagto akhlaaq lahayn ilmaha loogama tagto sabab gaani dheh dumar kaliya dumar ilmihii hoday ayaa la arkay so rag iyo dumar waa iskugu kaa mid dunida hadda la joogo so ragga laftirkiisaa kuu soo haray absolutely yah ilmo yar oo yar rag loogamaba tagaba no matter what ma uga tegaysidba why because waxa waaye ma suuli inta geeyo wax kama soo dhaqi karo wax ma siin karo danta aad intaad uga tagto qof raga aad uga tagto waaba qalad marka horeba ha uga taganin teeda labaad iska ilaali horta la soco aan dhahe qofka wax kufsanaya ilmaha hal habeen wax kuma sameeyo soo ma ogid marka hore wuxuu fiirinayaa ilmaha wuxuu ka taabanayaa meelaha private-ka ah uu ka taabanayaa wuxuu fiirinayaa bal inay cunugu uu sheego oo cunugu xasuus leeyahay ama uu baawar uu leeyahay uu ka hadli karo hooyadiis ama aabiis u sheegi karo meeluu ka taabanaa carsheeguu leeyahay ilmaha ama uu hilmaami ama qofkii uu ka baqi shibuu dhihi markaas kadib ayuu falkiisa ku soconayaa qofkaas soo marka ilmaha marka hore taabashada in jirkooda la taabto inaysan yeelin bar in aysan jirkooda horta la taabto ay mamnuuc tahay ilmahayga aniga qur-aanka macallinaa u dhigo iskuma dagaaleenaan ku dhahay number 1 waa la hadlay waxaan ku dhahay hud iyo caam haddii la akhriyo ul inta qaadatid korkooda ma saari kartidaan ku dhahay heshiiskeenna waaye hud iyo caam diin banaysa maa jirtaan dhahay qof bili-aadana jirkiisa in la xanuuniyo maya hud iyo caam haddii la akhriyo korkooda ma taaban kartid because waxaan ku dhahay the second aad ku dhufato inta kaasoo cararaana isoo wacayaanaan dhahay because relationshipka ayaga naga dhexeeyo waa mid aada u adagaan ku dhahay mid aada u adag oo qof jabin kara jirin ayaa ayaga naga dhexeeyaan ku dhahay soo marka wax garaaca ma jirtaan ku dhahay wuu iga aqbalay hadday wax kaa maqli waayeen time out qolaa kaligood la geynaa dad lama sheekaysan karto toyna ma ciyaaraysa videona ma daawanaysa tv that's it ciqaabtooda intaas waa maxaa korkooda loo garaaca diin balnaysa ma jirto dhaqan baneeyana ma jirto qof in la xanuunjiyo oo la garaaco oo la abiyuuso diin banaynaysana ma jirto akhlaaq maxaa la dhaqan banaynayana ma jirto waa sabi waa saqiir jugtaasi haddoo barto ogow cunugaaga qof kastana inuu jukayn karo qof kasta ayaan jukayn karo cunugaagii kula joogo oo wax walba lagu sameeyey ayaadan adiga ka warhaynin oo saas kugula weynaanaya oo kula dhameysanaya by the time uu weynaado ku dhahaya hooyaday saasay aheedo warba igama hayn anna saana igu dhici jirta calool xumo kaaga weyn ma jirto calool xumo kaaga weyn ma jirto so hooyooyinka waxaan u sheegayaa 100% ya ilmahaaga iyo adiga xiriir aad u weyn oo u fiican oo unbreakable oo la jabi karin ha kaala dhexeeyo ilmahaaga intuu yar yahay hadduu weynaado ilmahaaga xiriir maba yeelan kartaan in la iska kaa dhaha macsalaam laakiin xiriirka ugu fiican oo ilmaha lala yeesho waa inta uu ka yaryahay 13 years cunugaas xiriir haddaad fiican la samayso forever adii cunugaaga xiriiraa lahaanaysaan qof xiriirkaasna jabin karo ma lahan soo marka 10kaas shay iyo wixii kale oo aad samayn kartid gabdhaha ilmahooda waxay sameeyaan guryaha fadhiyada camera ku xiraan albaabka fadhiga guryaha laga soo galaayo ay ka arkaan dad badan hooyooyin badana shaqeeyo hooyooyin badana ilmahooda qurbaha laba wadan ku kala nool waxa waaye
ilaahay baa wax xafidi karo laakiin dadaalaa maxaa la yiraahday wuu gaaraa soo marka si aan dadaalkeena u gaarno dadkan xanuunsan ilaa ani ma dhihi karo qof caafimaad qabo ayaa ku dhiiranaya ilmo yare. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.